halkani waa BBC oo London idinkaga imaanaysa aadna ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada teleefanka bogga internetka ee bbcsomali.com iyo weliba Facebooka. habeen wanaagsan sida aad u dhantihiin akhyaarta hawada inagala xiriirtay saacadda Afrikada Bari waa 9 fiidnimo waa habeen Jimcaha oo sabti soo galayso 2 bisha Juun sanadka 2017 qodobada barnaamijka caawiya caalamka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah hogaamiyaasha adduunka ayaa si weyn u cambaareeyay go'aankii madaxweyne Trump ka wadankaasi Mareykanka uu uga baxay heshiiskii diirimaadka cimilada adduunka ee Paris xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kamid ah dadka ahmiyadda arrintan leedahay muujinaya. I'm deeply convinced that states, cities, the business. waxaan si aad u hubaa in wadamada magaalooyinka iyo bulshooyinka ganacsiga ay ku guda jiraan dhaqaalaha aan cimilada khatarta ku ahayn. heshiis boqolaal neef oo geel ah oo magac lagu kala qaadanayo ayaa 2 beelood ku dhexmaray gobolka Sool. maxkamad ku taala dalkaasi Holland waxa ay riday xukun aan caadi ahayn. wararkaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan iyo waliba wararkii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Cabdinuur Sheekh Maxamed anigoo Mawlid Xaaji Cabdiye ayaa idin la socodsiinaya caawa iyo caalamka. asaati aan ku horeyno wararka BBC ee caawa waxa inoo waramaya Axmed Cabdinuur. mahadsanid Mawlid. wadamada adduunka taajir iyo faqiirba waxay cambaareeyeen go'aanka madaxweyne Trump uu Mareykanka uga saaray heshiiskii la dagaalanka cimilada kululaanaysa ee Paris lagu gaaray 2 sano ka hor. kooxda 48 wadan ee adduunka ugu horumarka yar waxay sheegeen inay si qoto dheer uga xun yihiin tallaabada Donald Trump uu ku dhaqaaqay. la taliyaha sare ee madaxweyne Trump u qaabilsan dhinaca dhaqaalaha Gary Cohn waxa uu sheegay in go'aanka ay uga baxeen heshiiska caalamiga ah uu Mareykanka u ogolaanayo inay ku socdaan kala doorashadooda qaabka ay ku helayaan shidaalka ugu qiimo jaban. waxa uu intaas ku daray in dhuxushu ay mararka qaarkood noqon karto mid sicirkeeda lagu tartamo mar kale. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mr. Trump Rex Tillerson waxa uu sheegay in Mareykanku uu leeyahay taariikh wanaagsan ee dhimista wasaqda warshadaha ka soo baxda. madaxweyne Putin waxa uu eedaha sheegaya in Ruushku caawiyay Donald Trump inuu ku guuleysto doorashadii Mareykanka ay yihiin kuwa dhibaato leh waxaana uu si buuxda u beeniyey inuu jiray heshiis qarsoodi ah oo dhex maray Moscow iyo madaxweynaha ka hor intii aan xafiiska loo dhaarin. waxa uu sheegay in sii wadwadida malawaalkaas ay dhaawacayso xiriirka caalamiga ah. dacwad oogayaasha dalka Belgium waxay sheegeen in nin magaciisa lagu soo koobay Yaasiin si rasmi ah loogu soo oogay dacwad la xiriirta weeraradii bishii November ee sanadkii 2015 lagu qaaday magaalada Paris. tafaasiishu waxay u egyihiin kuwa laga hayo nin la yiraahdo Yaasiin Attar oo la xiray bishii Maarso ee sanadkii hore 5 maalmood kadib markii weeraro bambooyin lagu qaaday garoonka diyaaradaha iyo tareen magaalada Brussels. walaalkiis oo la yiraahdo Usama oo loo yaqaan Abu Ahmed ayaa lagu tuhunsan yahay inuu labada weerarba xiriiriye ka ahaa. wasiirka caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo la yiraahdo magaciisa Oli Kalenga waxa uu sheegay in cudurka Ebola oo dalkaasi ka dilaacay 4 qofna dilay haatan la xakameeyay. Mr. Kalenga waxa uu sheegay in aan wax kiisa ama qof uu cudurkaasi ku dhacay la diiwaan gelin 22 maalmood ugu dambeysay taasoo ah muddada la ogaado in cudurkaasi uu jiro iyo in kale. dadaal la isku dayo in cudurkaasi inuu faafo lagaga joojiyo waqooyiga bari ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa shaqaalaha caafimaadka waxaa loo ogolaaday inay isticmaalaan tallaal tijaabo ah oo Mareykanka laga keenay. mas'uuliyiintu waxay sheegeen in tallaalkaasi la isticmaali doono oo kaliya
haddii la helo qof cudurku ku dhacay. mudaharaadyo looga soo horjeedo dowladda Morocco ayaa ka dhacaya waqooyiga dalkaasi maalintii 7 oo xiriir ah. mudaharaadkan ugu dambeeyey waxaa kiciyey madaxii mudaharaadyada oo la xiray Naasir Safsafi. waxaa lagu soo oogay inuu khatar geliyey ammaanka qaranka. arrin qayb ka ah mudaharaadyadaasi ayaa shaqo joojin guud dalkaasi laga sameeyey maalintii 2 magaalada Al Hoceima iyo magaalooyin kale iyo tuulooyin ku yaala gobolka Rif. waa rabshadii ugu xumaayay Morocco ka dhaca sanado badan. dhimashada nin kalluunka jeclaa oo la oran jiray Muxsin Fikri magaalada Al Hoceima sanadkii la soo dhaafay ayaa dadka wadooyinka u soo saartay iyadoo ay ka caraysan yihiin eedo la sheegay musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed oo dowladda ay ku sheegayaan. Mawlid axmed cabdulla aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaa inala socodsiinaya wararka BBC-da ee caawa. halkani waa London. waa tahay aan ku bilaabo sida warka aad ku maqlayseen muranka iyo ismaandaafka ka taagan cimilada adduunka oo haatan dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ay cambaareeyeen go'aankii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah ee xakamaynta isbeddelka cimilada adduunka ayaa gees isqabsaday. koox ka kooban 48 waddan oo dunida ugu saboolsan ayaa ku eedeeyey Trump in uu muujiyey inaanu wax dan iyo heelaha ka lahayn nolosha malaayiin qof. Shiinaha iyo midowga Yurub iyo weliba Hindiya oo iyaga ah iyo Mareykanka ay yihiin 4 dal ee ugu waaweyn wasaqaynta hawada ayaa ku celiyey ballantii ay horey u qaadeen oo ahayd in ay fulin doonaan heshiiskii Paris ee la saxiixay sanadkii 2015. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxaa mar kale ku celiyey ahamiyadda heshiiskaasi cimilada oo uu yiri maanta in dagaalka lagula jira diirimaadka adduunka uusan istaagi doonin. sidaas darteed dal walba looga baahan yahay inuu u hoggaansamo heshiiskaasi. isbeddelka cimilada lama dafiri karo, waana mid ka mid ah khatarta adduunka iyo mustaqbalka. dhinaca kale sida cimiladu tahay waa midaan la joojin karin. waxaan ku adkaynayaa dhammaan dowladaha adduunka in ay ka go'naato hirgelinta heshiiskii Paris si aan dhammaanteen uga faa'iidaysanno. dalka Mareykanka gudihiisa waxaa jira diidmo iyo soo dhoweyn go'aankii madaxweyne Trump. gudoomiyaasha gobollada California, New York iyo Washington iyo weliba in badanna maayarada 6 magaalo oo waaweyn oo Mareykanka ah ayaa diiday in Mareykanka uu ka baxo heshiiskaasi. waxaase taageeray siyaasiyiinta waaweyn ee xisbiga madaxweynaha ee Jamhuuriga. Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu aaminsan yahay in go'aanka uu qaatay Trump uusan joojin doonin dhaqangelinta heshiiskii Paris. waxaan si aad u hubaa in waddamada magaalooyinka iyo bulshooyinka ganacsiga ay ku guda jiraan dhaqaalaha aan cimilada khatarta ku ahayn. maxaa yeelay kaasi ayaa ah mid wanaagsan oo ah dhaqaalaha mustaqbalka. dhaqaalaha aan deegaanka khatarta ku ahayn waa mid kale habka lagu noolaan karo qarniga 21aad. waa tahay codkaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. waxaa xusin mudan in magaalooyinka waaweyn ee maayaradooda arrintan ay sida weyn u gilgisheen inay tiradooda gaarayso ilaa iyo 60 magaalo. haddaba dhegeystayaasha BBC-da ayaa ra'yigooda arrintani Facebooka kaga soo dhiibtay. Maxamed JK oo degan Boorame ayaa waxa uu leeyahay haddiiba uu Trump go'aansaday uuna ku dhawaaqay inuu ka baxo heshiiskii Paris ee cimilada, waxay ila tahay in uu siyaasadda Mareykanka ku xidhay qol 4 derbi ah oo meel laga soo galo iyo meel looga baxa aan lahayn. balse waa eegi doonaa buu yidhi halka uu Trump ku hago siyaasadda waddanka Mareykanka. Xasan Farax oo jooga Gaalkacyo isna wuxuu yidhi Trump waa dhagax biyo kama qarqaro. cambaarinta loo soo jeedinayana ma ahan mid wax ka beddelaysa hadafkiisa, waana mid dalka Mareykanka hog ku ridaysa. waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaasha BBC-da Facebook arrintani kaga soo dhiibtay. halkani waa London. waxa uu
qorayay marka la soo koobo waa laba qodob labadaas qodobna waxay kala ahaayeen waa tahay waynu ku soo laaban doonaa waxa aynu u gudbaynaa haatan arrintaasi sida markaasi ay uga hadlayaan dadka sida weyn ugu dhuun dolola arrimaha deegaanka waxaa ka mid ah cabdulaahi asad oo isagoo degan waddankaasi sweden oo isagoo markaasi ka faalloonaya heshiiskan uu ka baxay madaxweyne Trump iyo weliba saamaynta uu yeelan karo waxa uu qorayay marka la soo koobo waa laba qodob labadaas qodobna waxay kala ahaayeen in heer kulka adduunka uusan kor uga kicin wax ka badan 2 degree oo Celsius ah iyo in laga guuro oo laga tago isticmaalka shidaalka maanta dunidu isticmaasho ee bensiinka iyo dieselka in markaas laga guuro oo laga tago labadaas qodob ayaa ugu muhiimsanaa intii doodihii dunida uga hadlaysay isbedelka cimilada iyo heshiisyada la rabay in laga gaaro kuwaas oo socday dhowr iyo 20 sano ugu dambeeyay dalka Mareykanku wuxuu ahaa dal caga jiidayo ahaa marka kaliya ee la arkay in dalka Mareykanku uu yahay dal markaas u soo jeeda in isbedelka cimilada adduunyada wax laga qabto waxay ahayd xilligii madaxweyne Barack Obama kaas oo runtii taageeray heshiiskii Paris kuna micneeyay in ay tahay meel dunida uga soo noqonayso khatarta ay ku sii socoto ee dhinaca cimilada sababta ugu weyn hadii la isku soo koobo ee Mareykanku madaxweynihiisu uu diidan yahay in heshiiskaasi markaasi ay ka sii mid noqdaan waxaa la dhihi karaa inay tahay arrin dhinaca dhaqaalaha ku salaysan maadaama Mareykanku uu yahay kan ugu horeeya uu yahay markii calaa qof loo xisaabo qashinka qiiqa adduunyada ee carbon dioxide-ka la yiraahdo ee dunida hawada ku sii deysa waddanka ugu horeeya inuu yahay sababtaas ayaan loo maleeyaa in madaxweyne Donald Trump ay sabab u tahay faa'iido intee dhan ayaa ugu jirta caalamka heshiiskaasi Paris marka waa marka koobaade waa runtii meel dunida uga soo noqon karto in cimiladaasi sii kulaanaysa ay sii socoto waana mas'uuliyad caam ah oo dunidu dhan ay wada qaaday haddii kale waxay noqonaysaa in haddii lagu sii socdo in markaasi cimilada dunida ay sii kulaato kadibna ay barafkii meelaha qaarkiis yaallo uu sii dhalaalo badina ay sare usoo kacdo maadaama biyo fara badan ay soo gelayso meelaha qaar roobabkii laga heli jiray ee sida caadiga looga heli jiray ayaa isbedel weyn haddaba ku dhacay arrintaas ayaa sii soconayso waxaa kaleeto dhacaya in fatahaadyo fara badan ay bilowdaan sida meelo badanba laga arkay waxaa isbedel ku dhacaya xitaa noolihii ayaa isbedel ku dhacaya oo cimiladii oo u bartay ayuu weynayaa meelo badan oo dunida ka mid ah oo dhirtii iyo xawayaankii ku noolaa ayaa sii gabaabsi noqonaya Mareykanka la'aantii caalamka intiisa kale maxaa u qabsoomi kara oo ku saabsan heshiiskaasi Paris runtii Mareykanka la'aantiisa ma suurtagelayso in heshiiskaasi uu hirgalo waayo waxaa la arkayaa tusaale ahaan haddii hadda la fiiriyo wadamada dunida ee heshiiskaasi saxiixay oo ilaa iyo 195 wadan ay ahaayeen 147 dal ayaa mar horeba waafaqay oo ku waafaqay heshiiskaasi wasiiradii usoo saxiixay oo ansixiyey marka haddii la yiraahdo wadanka Mareykanka wuu isaga baxayaa heshiiskan haddii la yiraahdo macquul ma noqonayso markaas in guurihii iyo waxyaabihii la rabay in laga gaaro Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed Asad oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka oo u waramayay wariyaha BBC-da Xasan Cali Geelle ayuu kaasi ahaa. Imikana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkii saddexaad galay howlgalka dawladdu u bixisay xasilinta Muqdisho oo ismaandaaf dhaliyay kadib markii howlgallo ay ciidamada nabadgelyadu sameeyeen oo meelaha qaar uu ka dhashay iska horimaad kooban oo dhex maray ciidamadii howlgalkaasi fulinayay iyo ciidan kale oo isla dawladda ah oo hubaysan dadka caasimadda ku nool waxa ay ku kala qaybsan yihiin hawshan qaar baa leh waa tallaabo loo baahnaa iyo qaar leh waa hubka dhigis aanay Soomaali u dhammayn Axmed Daaci oo ahaan jiray gudoomiyaha degmada wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah dadka aan la dhacsanayn sida qorshaha loo fuliyay wallahi waa ay fiican tahay hubka dhigis in la sameeyo laakiin hubka waxaa fiican in cadowga horta laga dhigo awoodda cadowga la wiiqo awoodda cadowga markii la wiiqo ka bacdi tuugsaqajaanka iyo burcadda hubka laga dhigo laakiin hub laga bilaabayo dadkii cadowgu taargadareynayay oo ama ciidamadii amba siyaasiyiintii aniga taas sax ila maaha haddii hubka dhigis dhacayso gobolada Soomaaliya oo dhan iyo ka dhacdo ma hal gobol in taargad laga dhigto sax maahan laakiin dagaalada kuwa aad cadowga ku tilmaamayso dabcan way socdaan meelo kasta ha ka jireen gobolka laakiin Muqdisho waa caasimadii in dawladii looga dambeeyo ammaanka oo wixii qori wata ay noqdaan ciidan dawladda ka tirsan oo kaliya maxaa dhibaato ay keenaysaa
waaba fiican tahay waxa laga dhigo hayaa ciidankii dawladda maahan dawladda dhexdeeda ayaa hubkiis ka dhigo haysa maaha shacabba maaha waxa la aado waa dawladda gudaheeda laakiin nin kasta oo ama mas'uul sheeganayo oo dawladda ka mid ah maleeshiyad isaga u gooni ah oo aan dawladda u diiwaan gashan ayuu muqdisho wataa muqdisho ninku wuu degan yahay dawladduna iyadaan xiriyoodhin sameeyey marka ninku waa dawlad xeladi ka soo kaco waragi intuu geeya soo kama fiicnaan in dawladda cadaadis lagu saaro in ay iyada ammaanka siyaasiyiinta iyo dadka hadda hubaysan ee gudaha magaalada jooga in ay sugto dadka inaan baylaha looga dhigin cadowga oon dadka hadda qorayaa lagu dilo waayaa cadowga asaantoorey ku dilin dawaayo waxaan ka hadlo weyno marka in cadowga in la wiiqoorta cadowga dalka laga saaro kabacdi waxa kale loo soo dhigto waayo waxaan ka hadlayno ma garan maya dawladnimada waad ogtahay oo sida loo soo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliduna hadda sideeri waaye laakiin da waxa la sugayo ma ahayn in cadowga sacdoolay looga dhigo waxa la sugayo ma ahayn ma garan laakiin shaki waxaa jira in dad ganacsata iyo shakhsiyaad siyaasiyiin ay magaalada dhexdeeda tiknika ku haystaan oo hub culus ku haystaan oo iyaga naftooda halis ku noqon karaan jiritaanka dawladda taasa la gaaro hadday wax bilaabaan ha lagu tago laakiin waa in cadowga laga xureeyo marka ma iyagoon cadowgii laga xureyna cadowgii loo xureeya shabaabka oo kale iyagu dagaalkooda wuu iska cad yahay laakiin ninka hub tiknika haysto oo aan mas-uul military ahayn oo aan xero ciidan joogin oo gurigiisa hub u yaalla in loo daayo miyaad qabta adiga meesha maba ku garanayno tignico annaga aan dawladdu lahayn magaalada muqdisho kumaba dhex garanayno qoragana waxa laga qaado hayo beryahan woon arkaynay waa dadka ciidamadii shaqooyinkoodii amba u socday amba ka socday marka aragtiyahaan waxaan leeyahay anigoon qabaa in cadowga awoodiisa la wiiqo shaqooyinka kalena dawladdu iyo waajibaadkeeda gudato ciidamadeeda xiriyoodhin u samayso hubka ninkii fasax qabaayo jelayo hubka xagga iska dhigo ha tiraayo isagoon askarigu cadow isaga cabsihayno magaalada nibira u tahayo laakiin ninkii asigoo qoradiisa ku gambanaya kii kaloo shabaabkaana qoradi hayso haddii asiga qoradii laga qaadorto asigu hala gowraco ma dawladdu hadda waxay ku adkaysanaysaa inay tallaabadaasi qaado hubka sharci darrada ah ee dadka gacantiisa ku jiro ay dadka ka qaado marka maxaa dadka hubka haysaad kula talin lahayd adiga anigu hubka sharci darrada hood sheegahaana ma garahayn anigu hubka sharci darrada anigu halka shabaabku haystaan u aqaan hubka sharci darrada waxaa weeye ninka aan ciidan military ama boolis ahayn ee hubaysan ama gurigiisa ku haysto ama ilaalo qabiil ay waardeynayaan dee waxa hubka laga dhigo hayo ayaaba ciidankii qaranka ahay ayaanto oo lagu kabnayo ma garato marka sharaad waxa madina ka dhacayay askari military ay ahaayeen waxa hubka laga qaadayay ee dagaalka iyo dhex maray marka maxaa shacbiyad gaara waaba ciidamadii waxa hawshu dawladdu ku malgan tahay marka askarta adigu mid sharciya iyo mid sharci darra maad kala taqaan adiga BBC da joogtay mid sharciya mid sharci darra maad kala taqaan adiga axmed daaci guddoomiyihii hore ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho oo u warramayey waryaha BBC-da xasan cali geelle ayuu kaasi ahaa haddaba isla mawduucan maanta waxaynu ku soo qaadanay barnaamijkii doodda jimcaha dhegaystayaal fara badan oo BBC-da ku xiran ayaa cod iyo Facebook arrintan ra'yigooda kaga soo dhiibtay waxaa ka mid ah dhegaystayaashan asalaamu calaykum ramadaan kariim bahda BBC-da iyo dhegaystayaasha iyo martida barnaamijkaba magacaygu waa saxardiid xaashi ardaale waxaan joogaa magaalada boorama haddii aan fikirkayga ka dhiibto mawduuca dooda ee BBC-da ee jimcaha runtii aniga waxay la tahay in qorshaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu tala gashay inay ku soo celiso ammaanka magaalada Muqdisho ee ah hubka dhigista inay ka mudan tahay marka hore in la sameeyo dib u heshiisiin guud wali waxa jirta waayo intaas oo hogaamiye kooxeed oo guryaha uu yeelo hubkoogii intaas oo qof oo haysta hub sharci darro waxaana arintaasi ka mudan baan leeyahay in la sameeyo marka hore dib u heshiisiin guud nin gabi ayaa wuxuu yiri laba shay ka horeeya haddii aan la hagaajin miyay hawlo dhamaanay in la sameeyo jawaabtuna waa maya in la sameeyo in hubka dhigis waxa ka mudan in la sameeyo dib u heshiisiin السلام عليكم مقعيقو على دوح ورسمان نورية أو تنسانيا جوغو وسلام يا لقيسياشا يا BBC دا يا ضدك غيرته وقيب قادنا يا ضد نهدي أن برنامج كجمعها ما أنت كهرلو ومهم وأنا تاجر سنة إن ضدك هو بيسنة عن دولة ده هنوب كلا قاضو وأنا وضد عن هرم مركة يبروقات كوجاري لهيني دولة ده محاولة لهيني برنامج كاسكت لبيسو وبرنامج فرحت قلي هذا شعبك وأنا دي سلام يا aad bay mahadsanyihiin kuwaasi waxay ahaayeen dhegaystayaasha BBC-da ee codadkooda ku soo duubay Facebook oo kaga hadlayay howlaha ammaanka ee magaalada Muqdisho ee dawladda ay wado shir
muddo 2 toddobaad ah uga socday magaalada Laascaanood ergooyin tiro badan ah oo ka kala socday 2 beelood oo in muddo ahba ku dagaalamayay koonfurta gobolka Sool iyo madax dhaqameed wasiiro ka tirsan maamulka Soomaaliland ay ka mid yihiin ayaa shalay lagu soo afjaray shirkaasi go'aamo iyo xukun lagu riday 2 beelood sida uu soo sheegayo wariyaha BBC da magaalada Hargeysa Axmed Siciid Cige gudoomiyaha guddiga dhexdhexaadinta ee 2 beelood Dr. Axmed Jaamac Ismaaciil Mire ayaa kaga dhawaaqay gabagabadii shirkaasi nabadeynta ah in 2 beelood ee dagaalamay midkeed lagu xukumay in ay bixiso magdhan 3,850 halaad oo ah magta dilka 39 qof oo midi ay tahay haween waxaa kaloo beesha kale lagu xukumay in ay bixiso magdhan 3,800 oo halaad oo ah magta dilka 39 qof oo 2 ay haween yihiin waxaa xukunkaasi ka mid ah in beel walba ku bixiso magta lagu yeeshay sida gudoomiyuhu sheegay ugu dambeyn 31 January sanadka 2018 ee soo socda salaadiin garaado iyo wasiiro ayaa ka hadlay halkaasi oo iftiimiyay qiimaha nabadda iyadoo wararku sheegayaan in 2 beeloodna ay ballan qaadeen inay nabadda iyo walaaltinimada ka shaqaynayaan waayahay imikana magaalada Burco aynu u gudubno magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo nawaaxigeeda oo baryahani oo farabaan ku hayay cudurka shubanka ayaa markaasi waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraantii 20 qof cuduradaasi oo ka dhashay nafaqadaradii ay dhalisay abaartii ba'nayd ee deegaanada Soomaalida ku dhafatay cudurka faafa waxa uu sababay in madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha Soomaaliland uu cafis u fidiyay maxaabiistii ku jirtay jeelka Burco markii cudurku ka dilaacay waxaa socda gurmad xoog leh oo maamulka dhaqaatiirtu ay kula tacaalayaan xakamaynta shubanka oo xawli ku socda wariyaha BBC da Axmed Nagaashi ayaa qadka telefoonka ee Burco waxa uu ku wareystay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo uga warramay dadka ilaa haatan cudurka u dhintay tiradooda waxaa 3 bilood dhimasho ku soo dhacay 3,400 waxaa dhimashadu 3 bilood noqotay 230 si aad iyo aad u weyn gacanta ugu haynaa shaqaalihii wasaaradda caafimaadka soo dhamaayeen waa heegan bay ku jiraan dhakhaatiir aad u tiro badan baa joogta xarunta muhiimka dadka ku daweyno ee shaqooyinka ku daweyno 270 xirfadle caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir iyo nurse kale ayaa jooga hay'adda ururka lanqeybta casba ayna timid oo qalab iyo daaweyn badan iyo dhakhaatiir keentay daaweyn weyn baan ka wadnaa marka xaaladda gacantaan ku haynaa dadaalkeena waanu ku jirnaa go'aankeedii hadafkeedina waxa weeye inaanu dhaqso haddii ala ka dhigo uga guulaysan xanuunkan una soo afjaro marka xanuunkan iminka ma wuxuu ku kooban yahay magaalada Burco oo kaliya mise guud ahaanba gobolka Togdheer deegaanadiisa oo dhan buu saameeyay ahaantii gobolka Togdheer siiba inta ku teedsan xuduudaha dadaal weyn oo wasaaradda iyo xukuumaddu galeen ayaa keenay inaanu dhulka ka soo afjarno xanuunkaas marka Burco hadda waxa weeye ishii u dambeysay meelo badan baan ka soo saarnay halkana waan ka saarnaa insha Allah waan ku guulaysanaa meelihii shuban biyoodku saameynta badan uu ku yeeshay dadka ku jira waxa ka mid ahaa jeelka weyn ee Burco oo dad maxaabiisi ku dhinteen maxaad ka qabateen isaga maxaabiistii dhaafiyayna sideed u kala fududeyseen jeelkaas waxa weeye arrinta ka dhacday waxa sababaya wad garan kartaa meel dad badan isugu urureen oo joogaan xanuunku markuu galo uu fidaya 7 maxbuus baa ku dhintay markii aanu aragnay xaaladdu siday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si loo kala yareeyo dadka meesha ku jira casiyay dhammaanba wixii dambiyo fududo fidnaa oo la sii daayay waxaanu rarnay oo meeshii ka saaray dhammaanba maxaabiistii xanuunsanaysay oo aanu u rarnay meel gaara lagu daweynayo waxaan haysanaa daawo ku filan waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adaha UN-ta iyo kuwa kale ee caalamiga ah oo aad iyo aad nooga caawiyay dhinaca daawooyinka waatahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo u warramay wariyaha BBC da ee magaalada Nairobi Axmed Nagaashi waatahay waxay noo soo socota sheeko la yaab leh oo ku saabsan maxkamad xukun aan caadi ahayn riday laakiin ma doonaysaa inaad ka qayb qaadatid abaalmarintii ugu horraysay ee laanta af Soomaaliga ee BBC u qabato gabdhaha hal abuurka leh
ma tahay gabadh da'deedu u dhaxayso 16 ilaa 35 jir abaalmarintan waxa aad uga qayb qaadan kartaa gabay aad adigu laftaada tirisay warbixinnada la xidhiidha arrintan sida looga qayb qaadan karo tartanka iyo weliba shuruudaha waxaad ka heli kartaa bbcsomali.com codsiyada abaalmarintan waxay xidhmi doonaan 15 bisha juun ee sannadkan 2017 qofka ku guulaysta waxaa lagu dhawaaqi doonaa 18 bisha julaay ee ku beegan sannad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta afka soomaaliga ee bbc-da waa tahay iminkana bal dalkaasi holland oo si weyn loo hadalhayo sheeko aad iyo aad u yaab leh isla markaasna sida warka aad ku maqlayseen maxkamadii ay riday xukun aad iyo aad la yaab leh oo aan caadi ahayn taasi oo ku saabsan tijaabo hidisadaha la yidhahdo DNA-ga oo caruurt ay doonayso in loo caddeeyo aabbahood inuu ahaa nin dhakhtar ahaa oo dhintay aniga laftigeyga ayaa sheekadan ku wareersan bal hadda axmed cabdinuur oo warkana ku akhriyay sheekadan bal hadda haynoo fasiray stuudiyaha ayuu la fadhiyay axmed waa mahadsantaa mawlid sheekada horta waxaa ku jirta uu ku socotaa DNA-da waxa la yidhaahdo waa wax soomaali ahaan aan dhahno dhiigaa loo kala qaaday dadka marka la dhoofayo iyo dadkii qofkii yidhaahda caruurteydii iyo xaaskaygii iyo hala ii soo raadiyo waata DNA laga qaado marka dhiig lama qaadee waxaa la qaadaa ama candhuuf ama dhacaan yaroo meel kale ah ama xataa meel aad taabatay ayaa la taabsiinaya qalabkaas lagu qaado imtixaankaas marka wuxuu muujinayaa qofka aad tahay qofkii aad sheeganaysana haddii sidaasoo kale asna candhuuf iyo wax dhacaan yar laga qaado inaad isdhasheen inaad walaala tihiin waxa isu tihiin ayay sheegaysaa DNA-du marka arrintan waxaa looga baxay waxaa jira dad intay caruur aan meher ku dhalan yeeshaan ayay isdafiraan ha dhowto marka taas hadda adduunyada hore u martay waa laga baxay waxba lama dafiri karo haddii ilmo aad dhashay aad diidid DNA baa lagaa qaadayaa inaad dhashay ayaa markiiba la sheegaya halkaasi ka caddaanaysa iyo in kale haa marka arrintan waxay ahayd caruur ayaa waxay tageen maxkamad waxay yidhaahdeen waxaan ka shakisannahay aabbayaasha iyadii rasmiga ahaa marka waxaan doonaynaa in naloo caddeeyo waxaa la yidhi yaad u malaynaysaan inuu idin dhalay waxay yidhahdeen nin dhakhtara oo la yidhahdo kaarbaad oo maamuli jiray meel haweenka uurka yeelan waaya oo lagu daweeyo dabcan haweenka markay 18 jir ilaa 35 jir yihiin yurub waxaa la ogolyahay haddii wax dhali waayaan in dhakhtar ay tagaan oo laga caawiyo inay ilmo dhalaan marka si gacan ku rimis ah maadaama aysan caadi u qaadi karin ayaa ninkoodii iyo inta shahwada laga soo qaado oo la farsameeyo ay sidaa uur ku yeeshaan mid xabad dhasha iyo inta badan 2 iyo 3 iyo mar qura dhalaan marka arrimihii sidaa ku socday ayuu ka shaqayn jiray dhakhtarkan xarun buu lahaa marka waxay leeyihiin ninkaas oo dhintay 18 jir ahaa ayaa waxaan u malaynaynaa inuu aabbahayo yahay oo intuu maaragtay minadiisii si khaldan haween uga buuxiyey malaha tii tiraada waa uuraysan waayaba waxbuu ku shubaayo oo tii xanuunsan u timaadaba malaha wixiisiibuu ku shubaa marka halkaasi maaragtay ilmahaas aaminsan yihiin inay ka dhasheen imise way carruurta marka doodaysa carruurtu waa badan yihiin hadda dhowr iyo 10 ayay marayaan laakiin inay soo bataanna waa laga yaaba marka kiisaskaasoo kale yurub ay ka furmaan way iska daba yimaadaan oo marba qaar baa soo baxa kuwa xitaa aabba lahayn ba waxay iska leeyihiin ninkaasaan dhalay hanaloo raadiyo waa ko iyo qaar isle xataa war ama xoogaa ku heshaan maaragta haddii wax qaldameen iyo maaragtay magdhow iyo wax soo baxaan iyo inkastoo ninkii tegeyba hadda oo si wax looga helay aan la ogeyn marka arrintu sidaas ayay yaab u leedahay maxaa marka la xukumay waxaa la xukumay DNA ha la qaado caruurtan ayaa laga qaadayaa candhuuftii iyo shaybaara la geynayaa kuwa ay yihiin baa la caddaynayaa ninkii dhintay alaabooyin uu leeyahay ama boorso ama maxaan ku yidhahdaa qalin ama shaar ama kaarka bangiga ama wax kasta oo taabtay wax ka mida ayaa lasoo taataabanayaa shaybaarkii baa la geynayaa ninkan iyo caruurtaana marka laysu fiirinaya waxay isu yihiin waxaa soo bixi doonta ninkaas aabbihiin ayuu ahaa haddii kale ninkaas aabbihiin maahee ama aabbayaashiina haysta ama aabbayaal kale raadsida
aad iyo aad baad u mahadsantahay axmed cabdinuur oo sheekadaasi nala socodsiinaya. wararka ciyaarahana waxaa ugu waaweyn kulamo saaxiibtinimo ayaa jira. mexico iyo jamhuuriyadda ireland ayaa ciyaaray 3-1 waxaa ku badisay mexico. waxaa kaloo kulmi doona faransiiska iyo Paraguay. northern irelandna waxay la kulmi doontaa new zealand. dhinaca kale kooxda liverpool waxa ay wadahadal kula jirtaa kooxda roma iyadoo doonaysa ciyaaryahanka reer masar ee maxamed saalax. idaacaddii iyo barnaamijkii uu soo saaray cabdinuur sheekh maxamed ayaa intaa kusoo gabagabaynayna waxaa inoo ballama berri 7 subaxnimo inta ka horeysa. nabadgelyo.